طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير. ما أحلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. ما شاء الله عيدي بين سودو الحمد لله. كنا فربق الله بيها فرتك هجرية سودو ويننا. هل قصة عيدة كصابصا يقفكو إنو كعيدسي يؤبد كيسا وحلا يجعلها سبحانه وتعالى. خليفكي وينا عمر بن عبد العزيز حلقيسي أيا واحد علي معلم مالماها كميدا قبر أو دلي أو يربع أصوغش يدو أوينيس markaasuu aabba maxaa kugu dhacay buudi oo kaa oohinay markaasay tiri aabbahayna waa madaxweyne oo muslimiinta oo dhan buu xukmayaa aniguna dharkii ciidda ma haysto waxaan ku ciidayaa dhar duuga. cumar hadalkaasaa damqay ila waa waalid wax dhalay moogta. deetana wuu socday wuxuu tegey baytulmaalka muslimiinta. kadib wuxuu codsaday cumar bin cabdicasiis oo ninkii khasnajhayihii أو كعد صدي بيت المال كمسلمين إن ميشارك بيشا صوص سعوتا وهو مريو نيكي وحو كو جوابي عجيب. عمر وانكو هرمرنيا وانا قصينيا لكن هل شردي أيا كهوريا هل كا شردي فلي ووامحي وعلو واحد يدى ما نتقادا بيشا الميشاركي قدوني سيد دنبي إنا النولان سيئ إنكار. الله أكبر. عمرون نحي وصول لابتي قرقيسي بوييمي وحنا ما سوق هذا نيكا توفير قرقيسي مركو يمي أيو أبد كيسي كوري أبو ما صبري سامبوري إنا سمرتان أو أتشنقشان ما كو صبري سامبوري الدنيا دي انتيري لنولي وهي أنيكو أو مال أيضان حقو لهين ونحل جيسي قاعدين دين سوق هذا وحي صوابا يسابو ليه aniguna inaan naarta ku galo haye bay yiraahdeen aabbo waan samraynaa aabbo. arrintan maxaan uga faa'iideysanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa markaad maanta waaqiceenna ku sallayso waxaynu u baahannahay qof madaxa ama maamula ama madaxweyne ahaado ama wasiir ahaado ama wax ka hooseeya ahaadee sidaa isku ilaalinaya oo ummadda muslimiinta waxooga sidaa iskaga ilaalinaya waynu u baahannahay. ilaahay nooga dhigo madaxdeena iyo dhammaan dadkeena kuwa sidaa xaqa bini aadanka iskaga ilaaliya. ta labaad ninka wasiirka ah ee khasnajiga ah ilaahay isagana ha ka dhigo wasiir maamul oo wax iftiya kuweenana ilaahay saa nooga dhigo subxaanahu wa tacaala. waayo qofka maamulka ah intuu xaaraan fara badan ama waxyaaba uu shaqaysan rujin lahaa hadduu ninka wasiirka aakhiradiisa xasuusinaya maaliyadda haya ama qofka kaashiyeerka baan nidhaahna sida in nidhaahna dee khayrkuu markaa ku kaalmeynaya. wax iyadana xusad mudan ilaahay ubadkeenna ka dhigo ubadkaasi cumar bin cabdicasiis ubadkiisa oo kale oo waalidkooga la jeclaaday in uu maanta wixii ay xaaraan quudan lahaayeen oo isaguna uu beri naarta ku galo ay maanta intay ka sabraan aboodna janno galo. waa qisar runtii aad u cajiib badan. waxaanan ka soo xigtay qisadaasi nin walaalkaya mustaf aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. kulle kitaabtuna way qoraysaa waanad gali kartaan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.